gurigaaga ma dhaafi kartid ku guurso. afku dhiigle, jeebku dhiigle, urku dhiigle, gacanku dhiigle. caliyuu dilay, calasowuu dilay, faaraxuu dilay, xuukuu dilay, xuruu dilay, xasan uutaxuu dilay, xasan fanaxuu dilay. weyna xasan sheekh maxamuudow isbaaro iyo ehelkeeda iyo qudaacu duruq inaad gacan bira ku qabato. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعرب عينا براروجيو دور قضب لكن وحن كور مرينا يا ولالكي أبوان جيسي أو هاي أبوان دليراء دتك براها بالشدة سامين تقول هاي كميد inaan ka tacsiiyo geeridii ku timiday. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'da wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. waxaan allah u weydiinaynaa su-aalaha inuu ilaahay u fududeeyo, rawdatun min riyaadi ljanna ilaahay uu kaga dhigo qabriga, gadaashiisana ilaahay uunana fidnaynin. soomaalida baraha bulshada joogto ee waxgalka waxaan rabaa inaan idhaahdo kale, abwaan geysi wuxuu nooga tegay dardaaran aada u qiimo badan oo inaan allahu jala wacalaa heshiis la noqono, ilaahay amarkiisana aan gacanta midigta ku qabsano, gaar ahaan inaan salaada ilaalino. nabigu sala allahu calayhi wasalam mu'minka asagoo la dardaarmayo wuxuu ku yidhi ixris calaa maa yanfacuka. mu'minow wixii ku anfacaya la imow, ku dadaal. salaada in waqtigeeda lagu ilaaliyo. runtii abwaanku caqiidadiisu aada bay u wanaagsaneed, ducadiisana ilaahay baa aqbalay. gabadha baraha bulshada la wareejinaya waxaan leenahay warkaas abwaanku gaf buu ku yahay, asxaabtiisa iyo reerkiisa. abwaanku xanuun ou dhimo karo ma haynina idab daro iyo akhlaaq xumo waaye. gabadha xijaabkii ilaahay faray qaado weysay ee mar walba garbasaarka dhinac ka qabanaysay qaawan, ou ninka axmed siciid leeyahay uu soo bandhigay ee coldoon miyaa la leeyahay magaceeda garan maaye, gabadha ilaahay u laawato. warkaydu wuxuu yahay naxnu laa nardaa biqadaa ilaahi, qadaha ilaahay raali kuma nihin waaye. abwaanka allaha u naxariisto. dadkii ragga ahaay wiilashii soomaaliyeed oo dhabtooda uu ku dhintay ee markuu naf baxaya la joogay ee isbitaalka la galay baa waxay yidhaahdeen xanuun ku filan oo aan kala go' lahayn baa ahay abwaanka, intaas baan ugu baxaya. waxaan rabaa inaan halkan kaga mahad celiyo intaan 11 bilood iyo 19 maalmood ee aan baraha bulshada joogay, intaan ka warhaya catoosh yare wax dhaqanka iyo diinta iyo ragninimada waafaqsan shalay uu ka sameeyey. catoosh waa mahadsan tahay, maxaa yeelay ragga waxyaabaha looga baahan yahay waxaa ka mid a dulqaadka, giigsiga, adkaysiga, haweenka inayna la ficiltamin. waxaan kaaga mahad celinayaa markay maslaxa kugu soo duushay fagaaraha iyo maaragtay wadooyinka magaalada muqdisho ay kugu timiday, kararkaaga ay ku dhegtay inaadan ficil ka geysan. waan kaaga mahad celinayaa. runtii waad guulaysatay, doqon mi ihid. halkii la rabay baad dhigtay, meeshii laga rabay baad ka soo baxday. in sha allahu tacaala nabigu sal alay wasalam wuxuu yihi laa yuldagu mu'minun min juxrin waaxidin maratayni. mu'min god laba mar lagama wada qaniino. catooshow in sha allahu tacaala guur dambe oo barakaysan baan allah kuu weydiinayaa. waxaan allah kuu weydiinayaa gabar cafiifada oo dhoorson. waxaan allah kuu weydiinayaa mid diin iyo akhlaaq leh. xaaskaaga iyo reerkaaga mar damboo suuqyada iyo baraha bulshada ha keenin. gabadha aada guursa doonto shuruud agdhig. gurigaaga ma dhaafi kartid ku guurso. nin walba oo baraha bulshada joogo
mid saddex qaba, mid hal qaba, mid laba qaba, nin walbo xaaskiisa iyo batuuladiisa gurigiisa u joogtaa. gabadha gurigaaga ha ku joogto. magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya raba inaan laba qodob ka iraahdo. Soomaaliya guud ahaan waxa ka jiro qabla al-islaam bi'ithadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ka hor wixii magaalada Makka ka jiray. 5 qodob baa magaalada Makka ka jirtay. ilaahay baa quraanka ku cadeeyay magaalada Makka mugdiya ka jiray. suuratul jumuc ayu Allah wuxuu yiri wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. nabiga sallallahu alayhi wasallam soo saaristiisii ka hor reer Makka iyo reer Madiina waxaad ahaydeen buuri taxta safar dad mugdi ku jira. nuurka qiimatul insaan iyo bani aadamnimada iyo in la isxurmeeyo gormay la bartay nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu yimiday jaa al-islaam. magaalada Makka waxa ka jiray in qamaarka la ciyaaro. waxa magaalada Makka ka jiray in qamriga la cabo. magaalada Makka waxa ka jiray qiimatul insaan laba qaanin gabdhaha nolosha lagu aasay. magaalada Makka waxa ka jiray zinada makshuf bay ahayd. magaalada Makka waxa ka jiray qabiil baa la isugu duulay. magaalada Muqdisho maanta qamaarka waa lagu ciyaaraa, qamriga waa lagu cabaa, waa lagu zinaystaa. zina makshuf ah meelo iyo goobo la yaqaano ayaa loo doontaa tumashada. Yusuf Hussein Jimcaale Madaale Sheikh Yusufow hoola fara badan baa ku horyaala inaad ilaahay diintiisa u hiiliso. dhaqan xumada magaalada Muqdisho inaad wajahda laga raba. maanta inaana qiimatul insaan la aqaanin waxaa daliil u ah falkii ka dhacay afaafka hore magaalada Balcad. nin muslima oo dhalinyara oo 12 qofood mas'uul ka ah, hooyadiis oo waayeel ah, walaalkii ka weyn oo xanuunsan, xaaskiisii 8 caruur ah, 12 qofood oo asagu oo ku dhaqanaya 13 ayuu u dhaqdhaqaaqay. wiil yar oo mooryaan ah oo gaangis ah oo balwadu ay ridatay ay bani aadamka qiimihiisa iyo dhiigiisa aan fahamsanayn ayaa xabad wadnaha u galshay. xabadu maxay ku timiday faham, maxay ku timiday xabadii aan kugu riday lacagtaydii isii. goormeen ka gudbaynaa isbaaro, goormeen ka gudbaynaa in dadka bilaash lagu dilo. waxaa looga baahan yahay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuudow isbaaro iyo ehelkeeda iyo qudaacu duruq inaad gacan bira ku qabato. dowladnimadu sir iyo been ma aha, dowladnimadu tacsiim ma aha, dowladnimadu amniga in la tuugo ma aha. amnigu wuxuu u baahan yahay dadka caqabaadka ku ah dowladnimada iyo amniga iyo systemka in gacan bira lagu qabto. waxaa warshiiq eeriyadeeda ka dhacay gabar iyo abtigeed iyo walaalkeed iyo aabaheed baa hal meel lagu dilay. halkay u soconaa waa dembiyada ilaahay laga gala dembiga ugu weyn ashirku billaahi. maxaa ku xigo allahu rabbul caalamiin oo adoomadiisa wax la iskugu daro, baryada iyo cibaadada oo la leexiyo meel kale meelaan ilaahay ahayn la geeyo. waxaa ku xigto wa qatlu nafs, in dadka dulmi loo dilo. insha allahu tacaala waxaa loo baahan yahay marka in bulshada muslimka ay ku baraarugsanaato in allahu jalla wacala dulmiga uu xarimay, isbaaradu inuu allahu rabbul caalamiin xarimay. markii qiyaamaha baxdiga la yimaado allahu rabbul caalamiin kiiska ugu horeeya oo furaya maxay tahay? awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati fi dimaa. waa dhiiga ugu horeeya, kiiska dhiigu ilaahay furaya. marka insha allahu tacaala maanta masaajidu way buuxaan. markaad xayaad mool ku dukato, markaad marwaas ku dukato, markaad isbahaysiga tagto, markaad jaziiro ku dukato, markaad arbaca rukun ku dukato, masaajidu way buuxaan. laakiin dhiigii muslimka aan la fahamsanayn. qof kasta oo muslima oo Soomaaliya ilaahay waxaad weydiisataa adduunyada inuu kaa bixiyo adigoo dhiig muslim biri ka ah. weydiiso allahu rabbul caalamiin. qof kasta wuu dhimanayaa, laakiin waxaa dhib qaba
qofkii dhinta asagoo qiyaamo lagu sugaaya. علي ودلي على سو ودلي فارح ودلي حوك ودلي حر ودلي حسن أوتح ودلي حسن فرح ودلي دد بدن باقيامك سجاي دد بدن باقيامك سجاي قف كستو بري كنقو روح مسلم الدل كيسا إن أتجعن كديق لنا غطو إن أجيب كديق لنا غطو إن أدور كديق لنا غطو إن أدأف كديق لنا غطو أفرت بإلهي أكتيس الدين بليالي كيه أفكو ديقلة جيبكو ديقلة أوركو ديقلة قعنكو ديقلة قفك أفكو ديقلها أي قفك بساسة قفك جيبكو ديقلها قفك وحل قدلها يا أما قاديد ككو قادة قفك مارة أورك قفك مركي لديلا كفرها إيه قفك قعنكو ديقلها هل يسنبت قليو هذا ربط مسلم نبا نبي صلى الله عليه وسلم لودي وعلى قالوا يا رسول الله إلهي رسول كيسيو نبي الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل بلشد مسلم كايا فضل بدن صلاة فربدن ميو كجوابي صوم فربدن ميو شيغي سنوين فربدن ميو شيغي هدايتاي حج سنة هدايتاي عمر سنة هدايتاي صدقات تبرعاتك مي محوكو جوابي من سلم المسلمون من لسانه ويده روح ددك كسوهرة أفكيسة إيقعنتيسة إيكا نبات قلان هلقان نبات قلان ومركا عاد ربطو إناد مسلم نبا أو حقيقي عاد نقطو إن شاء الله تعالى مساجدي ويبلوحدا لكن مساجد مركي بنانك لا صبحو قبيلة لا يسكدلا غير هبلا لا يسكدلا حاسن ما لا يسكدلا إسلام كنا أنت بواديدي إسلام لماذا الله نفهم سيو دين الله نوير عليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.